hablihii gamaa faras iyo geela ugubka guurdoonka bixin jiray hablihii gargaariyo guuleed ku curan jiray galdaloola iyo ceeb hablihii ka guban jiray haddii aad gumaysaan guulguul kulaysaan hadba tooda goosha ganacdeeda jabisaan dadku gabana xooriyo garacyalay idhaahdaan inagoo gumowniyo dhaqan guuri weeyaan gocashada xanuun kale waxaan uga gol leeyahay godob aabba falayba ubadkiisa gocodhiyo kumar shidan ku noqoto gabi dheer ka tuurtee ninka inin magaydaa golqaniin ku maale gurac kaga danaysto cid waxa ay ka go'an tahay gabadhaada weeyaan. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa walaashin Farduus Tansaani channelka idinkala hadlaysaana waa Farduus Tansaani. waxaan aad ugu mahadcelinayaa asxaabta cusub ee igu soo biirtay. waxaan kaloo aan u mahadcelinayaa asxaabtii hore oo aan leeyahay waa ku mahadsantiin aragiina iyo maqalkiina aad siiseen. waxaan inta hore waxaynu xasuusin doonaa insha Allah bismillaahi kariim gabaygii ama heestii uu sameeyay Maxamed Warsame Hadraawi ee ahaa hablaha geeska Afrika. marka runtii hablaha Soomaaliyeed waxaan ka soo sheekayay qaladaadka waxaan ka soo sheekayay shukaansiga qaldan iyo shukaansiga saxda ah. waxa aynu ku jirnaa wali waxa weeyaan wacyiga gabdhaha Soomaaliyeed. runtii waa u baahan yihiin hablaha Soomaaliyeed in la wacyigeliyo. waxa aan dhagaheenu maalin walba maqlaya walaal Soomaaliyeed ama gabadh Soomaaliyeed ayaa waxa wiilkii ay shukaansanaysay kufsaday. wiilkii ay shukaansanaysay ayaa nafta dhameeyay. waxa aan leeyahay inaga laftigeena ama gabdhaha Soomaaliyeed laftigeedu qaladaadka shukaansiga ah ee matalan lagu dilayo ee lagu kufsanayo ka qaymanahay. anigu fikirka ahaantayda waayo shukaansiga qaldan ama qaladaadka ama shukaansiga ama xidxidashada qaladka ah marka aynu ninkii ku waaqifno ama aynu ku gacan siino runtii waxaan anigu aaminsanahay in inantii dhibaatooyin badan ay u imanayaan oo ay ninkii shukaansanaysay u keenayaan taasoo ah inuu kufsado inuu dilo. sababta keenaysana waxaan anigu aaminsanahay inay tahay shukaansiga qaladaadka shukaansiga ama xidxidashada qaladaadkiisa. runtii qayb waan ka nahay oo gabdhaha Soomaaliyeed waa ka qayb. sababta qaybta ugu noqdeen baan kuu sheegi doonaa. sababta qaybta uga noqdeen waxa weeyaan marka nin aad la kaliyeysato walibana aad gurigiina intaad ka kaxayso goob kale aad u raacdo runtii waa la soo wada maraa oo shukaansi waxa ay jecel yihiin gabdhuhu marka ay shukaansanayaan in ay meel cidla iyadiyo saaxiibkeed ay ku shukaansadaan. laakiin waxa imanaya mistake aad u badan ama qaladaad aad u xunxun taasoo ah in aad naftaadina ku weydo alla ka cabsigaadina aad ku weydo. taas baa keenaysa. laakiin waxa aan leeyahay maxaaba fursad u siinaysaa way aad gacan u siinaysaa way aad fursad u siinaysaa ninkan ku kufsanaya ninkan ku dilaya markuu waliba dantiisii ka dhamaysto maxaa sababta aad gacanta u siinaysaa waa maxay? gacanta ay siinaysaa waxa weeyaan ma aha oo ma oranayso i kufso taa ma aha. laakiin waxa weeyaan qaladka ay galaysaa waxa weeyaan in ay gabadhii siiso ninkii fursadahaas oo ah inay horta rumaysato jacaylkan uu soo bandhiganayo. jacaylkan uu soo bandhigayo ayaabay marka horeba rumaysatay. waayahay haba rumaysato dumar baynu wadano waan iska wada rumaysanaa. haye waa kan inuu kugu soo dhawaadiyo inuu jirkaaga taabtiyo inuu waxaan ku dhibaatooyin kugu sameeyana oo inaga ka aqbalay. waa qodobkii labaad. qodobkii saddexaad waa kanoo ku yidhi ina mari meel aan cidi joogin oo aanay dad joogin. qaladka ugu weynina bartaasuu ka yimi markan uu ku leeyahay gurigaan anigu leeyahay ee uu cidlada ka dhiganaya amaba soolanahaada ama salbateerahaada ama wuxuu doonaba ahaada guri markiisii horeba uu cidlo ku ahaa. waa kan ku yidhi igu kaalay gurigii baad ugu timi. naf iyo shaydaan baa meeshii ku jira. dee waa kan dhibaatadii ugu badnayd kugu sameeyey ee weliba ugu xooga badnayd ah inuu ku dilo oo uu ku kufsado. marka waxaan leeyahay inaga laftigeenu waxa aynu ka qayb qaadanay waa qaladaadka shukaansigii iyo inagaaba gacan siina sometimes. aad waxaan uga xumahay gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan
wiil walaalkeeda ama wiil ay dhashay ayaa maalin kastaba waa dhibaataynaya maalin kastaba uu dhibaya maalin kasta uu kufsanaya waxaan ku cid inoo bad qabtaa Soomaaliya ma jirto hadda waad arkaysaan habli yareeraasha jirka ha lama dhaafayo waad arkaysaan habli yareeraaya sanadka jiray lama dhaafayo waad arkaysaan marka dhibaatooyinka ugu badan kufsi buu noqday haddaba waa kufsiga sababaha keena anu waxaan aaminsanahay hay'adaha iyaguna mashaariic ku qaata hal kufsi ama hal dhaqan xumaa dhacaysa intaas oo dhan baa laga dhigayaa haddana qaladaadkii waxa ka sii daranba hadda macallimiintii madaarista ayaaba loo soo dhigto la fadeexadaynaya macallimiinta madarasaduhu inta badan ilama aha qaladaad mid iimaanka Allah ka qaaday mooyaane inay sameynayaan laakiin halkaana maxaa ku jirta in diintii islaamka ina la nacsiinayo marka waxaad ogaataan horta in kufsiga laftigiisa la fangareeyo meeshii doontaha laga fangareeyo waa la fangareeyaa taasa shuura oo aan anigu soo ogaaday oo aan soo baaray kowdey marka waxa aan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed bal naftiina iyo nafaha waalidkiina ee naxaya aynu bal dhowrno oo waxaan ku yiri xitaa dumarka la qaba hadii fursad loo helo oo meelaha wax la dhaafaya ma jirto gabadhii Puntland gabadh bay ahayd 9 bilood lahayd xitaa dumarka meelaha marka ay marayaan inay Ilaahay tala saartaan oo ay Ilaahay tala saartaan oo Raxmaanka tala saartaan oo ay duco ku baxaan ayaa waajiba ilmaha yar ee dhalatay ee maalin walba la leeyahay 5 jir weeyaan iyo hal sano jirta nin baa kufsado nin baa caynkaas fiidiyoyada ina loo soo duubayo ragga soo duubayo horta dhaqan xumada hadaa soo duubtaan dhaqan xumadii nin weyn oo 40 jir oo leeyahay inay 5 jiraan kufsaday ninka soo duubayo waxa aad ku dhiiri gelisay rag kale oo xumaana oo qalbigoodu buko oo marad qalbigu kaga jiro oo xumaana markan aad leedahay wariya soo fadhiso sidaad gabadha u kufsatay sheeg marka aad leedahay waxa aad ku dhiirin gelinaysaa qaar badan oo qalbiyadoodu bukaan oo xanuunsanaya kaasaad ku dhiiri gelinaysaa marka waxaan baaq u dirayaa marka koobaad waxa weeyaan ragga fiidiyoyada ka soo duubaya ka iimaanka Allah ka qaaday ka bilaa dhaqanka ah ka aan Ilaahay ka cabsanaynin ka aan rabbigi iyo raxmaankiisa ka cabsanaynin waxaan leeyahay marka nimanka iyaguna waxaan baaq u dirayaa nimanka intuu nin weyn oo 40 jiri ina yar oo 5 jira intuu kufsaday ka soo duubaya fiidiyoyado ee xumaanta iyo waxaan ku sii faafinaya ee dhiiri gelinaya motivation u noqonaya ninka kale ee qalbiga buka ee guri walba jooga ee la rabo inaan la xitaa la dhaafin inta yar sanadka jira la maba dhaafin marka aynu arkayno idinka ugu xadhacaya ta 5 jirka lama dhaafayo ta uur kale lama dhaafayo ta 3 caruur soo dhashay Allah u naxariistay ee ugu dambeysay kiisaskii lama dhaafayo marka waxa aan leeyahay war nimankan fiidiyoyada nimanka xunxun ka soo digayo adigoo dilaa dhaanta oo ninka inta maxkamad geysay waxaan ku uri xukunkii Allah yiri ku qaada aad ku qaada dhaanta laakiin waxaan ku uri waad wareysanaysaa waxaad u wareysanaysaa aydan yaqsiinba oo aydan wasuusayninba oo aad leedahay maxaad samaysay saasan sameeyay war idinka laftigiina qolada social media waxa aad ka qayb qaadateen waxa weeye kufsiga iyo xumaanta ayaad ka qayb qaadateen habluhuna waxa aan leeyahay ninka aad shukaansanayso gurigiina ha kugu yimaado hadduu ku rabo gurigiina ha ku shukaami gurigiina adigu kufsa hadaad doonto imisuunba ina la kufsanayay imisa ina la xumaynaya imisa ina la dhibaataynaya imisa ina la dilaya waxa aan leeyahay adigu ninkan ku idhi waxa aan ka rabaa shukaansi gacan ha siinin fursad ha siinin waqti ha siinin haddaad meel cidlaa u raacdo waqti baad siisay haddaad fiidiyo qaawan u dirto waqti baad siisay haddaad meel cidlaa la fadhiisato waqti baad siisay haddii waxaan ku yidhi uu guri cidlaa uu isagii degan yahay uu kuugu marti qaado waqti baad siisay walaalay waqti ha siinin gabadha muslimadda ay waqti ha siinin walaashayda aan jecelahay ay waqti ha siinin ninka buka ee qalbigiisa maradku ka buuxo waqti ha siin ku adkayso shukaansigiisa telefoon ha kaala hadlo markuu telefoonka dhameeyo aad xiijiso
waxa aad ku xigsiisaa war gurigayaga iigu kaalay markuu gurigiina kugu yimaadana wixii aad ku samaynaysa aday ku jirtaa maalin walba gurigiina ha kugu yimaado hooyadaa way jeceshahay inay inanteedu meel hormarto hooyadaa way jeceshahay inay nin wanaagsan hesho hooyadaa way jeceshahay iyo walaaladaa inaad guur xalaala hesho haddaad guur doontay ood qaangaadhay wax xalaale wax laakiin kaliyaata waxaa laguu diidaya waxyaabaha aad qarqarsanayso waxaa laguu diidaya waa xumaanta hooyadaa u sheeg waxaad tiraahdaa waxaan rabaa ninkaasaan shukaasan hooyooyinka qaar badan baa waxaan ku hooyo xadaariyiina baa jira hooyo reer magaalo baa jira hooyo kaa aqbalaya ninka aad la sheekaysanayso gurigiina inaad ku sheekaysataan hooyooyin badan baa jira oo kaa aqbalaya waxa aan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed oo nafteena iyo nafaheena aynu ilaalino nafaha waalidkeena aynu ilaalino nafaha walaaladeena aynu ilaalino huqda iyo ciilka iyo aakhirab seega iyo waxaan ku yiri nafteena oo aynu ku waayeyno shukaansi qaldanna aynu ilaalino waxaan idin leeyahay walaalayaal please and please aynu fahanno shukaansiga qaldan iyo shukaansiga saxda ah horaan u soo sheegay YouTube-kayga waa ku jirtaa labada ninka shukaansiga qaldan ka raba iyo ninka shukaansiga wanaagsan ka raba labadaba waan ka soo hadlay barnaamij horaan kaga soo hadlay waxa jiro oo kale dad badan oo YouTube-yada kaga soo hadlay shukaansiga ama xidxidashada qaldan marka waxaan leeyahay intii dhimatay hablaha kufsiga iyo dilka lagula kacay waxaan leeyahay intii dhimatay samiriga iimaan saadiqa Allah inaga wada siiyo hablaheena cawradaha imika inoo joogana Allah inoo ilaaliyo dumarka xaasleyda ee la qabana Allah xifdiyo aynu ducada ku baxno aynu ilaahay bal xarigiisa qabsano insha Allah biidnillah rabbina wayna ilaalin hadaynu inagu taxadirno oo aynu shaydaanka iyo waxaan ku waxa qalbigoodu bukay maradka qaba aynu iska ilaalino waxaan leeyahay waa Farduus Xasan Saani oo idinku dhaafaysa please iga ilaawina like share iyo commentiga intuba waa xaqiina cid idin sheegi mayso waxaan idinkaga tagayaa is arag maqal dambe oo xiiso leh fi amaanillah